adnigo moog marinka toosan kii u maleeye adnigo moog marinka toosan kii u maleeye cilmigama muulaya nolosha helay miftaaxi asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhammaan daawadayaasha ku xiran janaalka miimirqaan janaal iyo kuwaan ku xirnaynba waxaad kusoo dhawaataan barnaamijkii sharxitaanka maadada fisikska ee fasalka form 4 ee manhajka cusub oo idinkaga imaanayo MK Channel soo gudbiyay waa Ustaad Miimirqaan. fadlan haddii aad ku cusub tahay channelka inoo subscribe garee adigoo gujanaya gambaleelka like commentigana waa inoo muhiim mahadsanid. wayahay waxaynu soo dhaafnay jabtarkii 6 ee dispersion ah. haatan waxaynu soo gaarnay jabtarkii 7 ee la magac baxay electromagnetic induction in ugu hadli doono qodobooyinkan soo socda insha Allah. waxaynu ku soo falanqeyn doonaa cutubkan intaan ku wadi jirno ciwaan midkiisu yahay electromagnetic induction oo introduction noo noqon doona oo ah saaqid bir labdanabeed si la mid ah ciwaanka labaad ee rabno inaan falanqeyno waxba ka sheegno waxay noqonaysaa marka EMF induced electromotive force. waxaa kaloo kaga hadli doonaa oo ah induced electromotive force xoog danabwadaha saaqmay iyo sidoo kale waxaan kaga hadli doonaa waa Faraday's law of induction xeerka Faraday ee saaqida ah ayaan kaga hadli doonaa. intaan ku guda jirno chapterkani ayaan kaga hadli doonaa. haddii ay tahay markii kugu horeysay aad soo booqato channelka noo subscribe garee una share garee asxaabtaada mahadsanid. wayahay haddii aan guda galno electromagnetic induction oo ciwaankeeni ahaa ama jabtarkeeni ba ahaa. electromagnetic induction waa bilabdanabka saaqida ama bilabdanab saaqida ama saaqid bilabdanab sa u taqaanaba. all electric circuit that you have studied use battery or electric power supply to create potential difference with a circuit. sida ogtahay dhammaan wixii electric circuit mareeg electric oo danabeeda ay soo baratay waxaa loo isticmaalayay bateriyo ama in loo isticmaalo electric power oo danab ama koronto lagu dhaliyo si ay markaasi u abuuraan faraqeed ee u abuuraan inta lagu guda jiro markaasi circuitkaas. electric circuityadii mareegyada danabka dhammaan soo baranay waxaa la isticmaalayay bateri ama koronto la isticmaalayay oo si faraqeed loo dhaliyo markaasi ama loo abuuro oo within circuitka inta lagu guda jiro. haddaba electric fieldiga xeendaaban ku xeendaaban ama areada ku xeendaaban bilabka ama danabka ku xeendaaban ama majaalka danabka and associated with that potential difference la xiriira marka difference-ga potential difference farqeedkaas la xiriira ayaa sababaysa charges in chargesyada to move ay u dhaqaaqaan ama ka soo dhaqaaqaan through the circuit and create ayna abuuraan qulqul ay abuuraan. markii sida loo isticmaalo electric power and battery lagu isticmaalo si potential difference ay circuitka ay ugu abuuraan electric fieldiga la xiriira potential difference-ga ayaa waxa uu sababayaa in chargeska ay ku dhaqaaqaan ama ay dhaqaaqaan si ayna abuuraan current ama qulqul danab inay abuuraan. sidoo kale halkaas waxaa meesha lagu abuuray currentiga waa mar la isticmaalay bateriyada iyo electric powerka. sidoo kale it's possible waxaa macquul ah it's also possible waxaa macquul ah to induce in current in qulqul ama qulqul saaqid lagu sameeyo circuitka without the use of battery iyadoo aan la isticmaalaynin battery ama electric power supplied koronto iyadoo la isticmaalaynin battery la isticmaalin haddana current qulqul la dhalin karaa. sidee lagu dhalin karaa marka? haddaba jabtarkani waxaynu kaga hadli doonaa xeerka Faraday. ninka loo yaqaano Michael Faraday ayaan kaga hadli doonaa xeerkiisa kaasoo which dictates kaasoo markaa tilmaamaya ama sharaxaad ka bixin doona how changing magnetic flux through the lobe induced electromotive force in the lobe. sida burqadanabka isbedelka ku dhaca uu soo marayo loobka induced uu ku saaqmayo xooga danab wadaha saaqmay
ama xoog danab wadaha ee loobka ku jira. Markii flux judging ama judging magnetic fluxka uu loobka uu soo marayo electromotive-ka ee loobka ku jira. sidoo kale waxaan kaga hadli doonaa chapterka intaan ku jirno Faraday law la xiriira related law la xiriira ee leh ninka loo yaqaan Lenz's law ama ninka loo yaqaan Lenz. asina muxuu sheegi doonaa haddii Faraday uu ka hadli doono judging fluxka ee soo maraya induced electromotive-ka in the loobka, haddaba Lenz's muxuu ka hadli doonaa direction-kii EMF-ta oo xoog danab wadaha direction-kiisii ayuu markaasi go'aaminaya ninka loo yaqaan Lenz's law xeerkiisa. This principle ama the principle mabda'a ama ifafaalaha ama mabda'a principle-ka of the electromagnetic induction danab wadaha ama saaqid danab wadaha the result ayaa waxay noqonaysaa result ka dhalan rashatay ama soo experiment gareeyay ama tijaabo ka sameeyay ninka fiisiyahanka ee Ingiriiska ee u dhashay wadanka Ingiriiska ee lagu magacaabo Michael Faraday oo halkaas sanadooyinka noolaa sanadkaasna dhashay. principle-kaasi oo hadda in iyadoo aan battery la isticmaalin haddana electric power oo supply la isticmaalin haddana in la dhaliyo qulqul in la dhaliyo, taa oo markaasi sheegaysa in xeerkiisu ka hadli doonta in how magnetic flux through the loobka oo induced uu ku saaqmay. Michael Faraday marka warbixino badan iyo dhowrtus badan oo sameeyay experimentiga ugu dambeyn Michael Faraday found wuxuu helay that the produce electric current in uu soo saaray ama ay soo saarayso electric current needs oo u baahan in electric current-ga lagu soo saaro iyadoo aan battery la isticmaalin ay u baahan tahay either midkood hot the wire moves inuu dhaqaaqo. yani marka hore wuxuu sameeyay inuu keeno wire kadibna uu keenay wax mid oo qalabka wax lagu cabiro markaas oo ama magnetic sida with wire magnetic markuu isku xiro qalabkaasna uu ku sii xiray magnetic ama labada qalab markuu ku soo xiro wire-kan uu duubay ayuu marka hore tijaabada uu sameeyay tijaabadan weeyaan wata wuxuu sameeyay wareega loobka ee circuit-ka circle-ka ay macnaha wire-ka ayuu wuxuu aqdigay magnetic. jawaab uu heli waayay oo dhaqaaq dhan waa uu heli waayay oo wax dhaqaaqay mare. kadib wuxuu dhahay waxaan ma shaqeynayaan. gadaal uu bixiyay dhaqaaq uu sameeyay, hore uu soo bixiyay haddana dhaqaaq uu sameeyay. kadibna mar walba uu bilaabo dhaqaaq markuu sameeyo ama wuxuu dhaqaajinaa magnetkii oo magnetic ama wuxuu dhaqaajinaya wire-kii ayuu dhaqaajinaya. markuu wire-ka la dhaqaajiyo ama magnetka lagu soo dhaqaajiyaba waxay noqonaya marka in ay markaasi qayb tahay dhaqaaqayso saacadda. haddii laakiin la istaajiyo mid walba mid kale ka dambeysa labaduba ay stationary galaan oo la dhaqaajinin ayadana sidoo kale way istaagaysaa. taas muxuu helay marka? wuxuu helay marka in wire-ka moves in the magnetic field majaalka oo bilabka ka jira inuu wire-kaas ku dhaqaaqo ama source-ga magnetic field-ga naftigiisa inuu ama magnetka la dhaqaajina ama wire-ka magnetic field-ga lagu dhaqaajina majaalka bilabka ka jirta ama magnetic field-gii waxa lagu soo dhaqaajina wire-kii lagu soo dhaqaajina. so si usoo saaraan marka electric current si usoo saaraan. so process-kan ay ku dhalinayaan ama generator ee lagu dhalinayo electric current qulqul danabad in closed electric circuit iyadoo lagu soo dhaweynayo electric circuit-kii in this way habkan waxaa loo yaqaanaa electromagnetic induction saaqid birlab danab ayaa loo yaqaanaa. oo maxaan dhahnay wuxuu sameeyaan dhahnay wire-kii iyo birlab danabkii saacadaasna ku xiray birlab danabkii markuu meeshaas iska dhigay wax dhaqaaqa uu sameeyay wayse. dhaqaaqitaan markay sameeyaan ayay markaasi saacaddu dhaqaaqaysaa. halka wuxuu ku ogaaday marka in wire-ka ama ha ahaado magnetic field-ga labadooda midkoodaba hadduu dhaqaaq sameeyo midka uu kusoo wajahano ama towards ama away ama wax loo yaqaan away from ay noqoto in markaasi saacadda ay dhaqaaqayso halkaasna ay current uu halkaas ka jiro. haddaba waxaa kaloo ku qeexi karnaa electromagnetic induction-ka saaqid birlab danabka waxaan ku qeexi karnaa waa process waa hanaan ama geedi socod of producing lagu soo saarayo voltage-ka by using iyadoo la isticmaalayo marka magnetic field-ga iyo current-ga in the complete circuit-ka la isticmaali doono. habkaasna waxaa loo yaqaanaa electromagnetic induction ayaa loo yaqaanaa. waxaan markaan ku xijin doonaa electromagnetic induction guud ahaan applicationskiisa waxyaabaa loo adeegsado
meelaha loo adeegsaday yani applicationskiiska ayaan kaga hadli doonaa qaybtani. Magnetic ama electromagnetic inductionka, and the principle of electromagnetic inductionka ayaa loo isticmaalo many devices iyo systemyo badan ayaa waxaa ka mid ah devicekan loo yaqaano current clamp. Current clampka waxaa loo isticmaalaa in lagu cabiro currentiga wireka ku jira ama kusoo qulqulaya intuu la egyahay ayaa loo isticmaalaa current clampka ama qabatada sida caadiga ahi nooca ayuu u yaalaa. Sidoo kale graphic tabletyada ilmaha loo isticmaalo ama marka yani shirkadaha inta badan markii ay waxaas galayaan graphic markaas design ahaan xitaa loo adeegsadaa jirto oo graphic tablet ah, tabletyada waaweyn oo design ahaan loo adeegsadaa jirta. Sidoo kale waxaa jirta marka induction cooker, kuwa wax lagu karsado oo induction cookerska ah, asin sidoo kale saaqitaankay noocaas oo kale ayuu ka mid yahay electromagnetic induction, waa mid ka mid ah applicationskiisa. Si la mid ah indicatorska qalabka noocaas u yaalo, asin sidoo kale applicationska of electromagnetic induction ayuu ka mid yahay. dhowr ayaa jiraan. Hadda afartan waxaan ku soo qaadanay marka qaybteena sidan u dhacaysa waxay tahay current clamp, graphic tablet, induction cookers iyo indicators. Hadhow haddii lagu weydiiyo oo lagu dhaho sheeg applicationsyada loo adeegsado electromagnetic induction, haddaba saddexdan ama afartan ayaa tixi kartaa ama saddex ka mid ayaa ka sheegi kartaa. Waxaan baranaynaa magnetic flux. Maxaa la dhahaa burqad birlab, maxaa loo yaqaanaa burqad birlab? oo ereyga flux marka qaar waxay noqotaa change ayay noqotaaba. So magnetic flux burqad danab ama burqad birlabka muxuu yahay? intaan burqad birlabka aan baranay marka hore aan is xasuusino magnetic field-ga iyo magnetic field line aan is xasuusino. Magnetic field-ga waa area-da ku xindaaban birlabka, kaasoo birlabka ama shayga xooga birlabka ay ka muuqanayso ayaa waxaa loo yaqaanaa electric ama magnetic field. Is the region waa meesha ama area-da surrounding ku xindaaban magnetka awoodda birlabka in which taasoo effectigeeda magnetic force-giisa appears ay ka muuqanayso. taa micnaheedu waxay tahay haddii birlab aynu dhigno halkan, sidoo kale masmaaro yaryar ama waa biro yaryar aan halkan dhigno, biro yaryarna qeybahan aan dhigno, waxaan filayaa biraha yaryar ee ku dhow ayay soo jiidanaysaa oo kuwan oo jiidashadiisa way ku adkaanaysaa inay soo jiidato. Sidaa awgeed eriyadaasi ka jira awooddaas birlabka ee leedahay eriyada ay ka jirto waxaa loo yaqaanaa magnetic field ayaa loo yaqaanaa. Haddaba magnetic field-gu maadaama aan la muujin karin oo la arki karin, sidaa awgeed waxaa lagu sameynaa marka in lagu muujiyo markii aan fiirinayno falaar ahaan ayaa lagu muujinaya. Arrows ayaa la isticmaali doonaa, lens ayaa la isticmaali doonaa. Lens sidaas la isticmaalaya waxaa loo yaqaanaa marka magnetic field line. Sidoo kale waxaa jirta the density of magnetic field-ga, cufnaanta leenka magnetic field-ga any point waxay noqonaysaa waa amountiga magnetic field-ga, waa cadadka inta uu la eg yahay magnetic field-ga. Haddii aad maqasho density of magnetic field-ga lane-ka waa of any point bar waliba ha ahaatee waxay noqonaysaa waa amountiga of magnetic field-ga, majaalka inta uu la eg yahay cadadkiisa. Faraday ayaa wuxuu isticmaalaya marka conceptiga ah magnetic flux ayuu isticmaalaya si uu u sharaxo marka phenomenon fafaale la xiriira electromagnetic induction. si uu u sharax marka electromagnetic induction wuxuu adeegsanayaa ama gabaad uu ka dhiganayaa electro ama magnetic flux. And the magnetic flux-ka which is the number kaasoo oo yahay marka numberka oo magnetic field line-ka ee penetrating surface perpendicular ku ah surface-ka oogada kasoo baxaysa magnetic field line-kii ama lenskii magnetic field-ga ahaa inta ay leeg yihiin ee markaas surface-yada perpendicular ku ah isbedelka ama magnetic field-gaas ayaan waxaan leenahay marka magnetic flux ayaa loo yaqaanaa. Ama si kale aan u dhexno ama aan u qeexno magnetic flux waxaan kaloo dhihi karnaa is a measurement waa cabiraadaasoo of the total magnetic field oo dhammaan ama total magnetic field-ga majaalka birlabka which passes a field lane weliba ah oo magnetic field lane that passes through a given area, kaasoo area waa lane markaas areadaas markaas ay inta magnetic field lane-ka ee la mid soo marayso areada and it is denoted waxaan loo soo gaabiyaa symbolka phi ayaa loo soo gaabiyaa symbolka phi ayaa loo soo gaabiyaa. SI unitkiisu oo magnetic flux-ka waa Tesla meter square ayaa lagu cabiraa Tesla meter square ayaa lagu cabiraa ama inaan dhahno Weber oo WB ah soo gaabineen. Sample ahaan waxaan dhahnay
waxaa loo qaataa phi ayaa loo qaataa oo magnetic flux ah si la mid ahayna halbeegiisuna waxaan leenahay waa Weber ayaan leenahay qeexitaankiisuna waxaan dhahnay waa total magnetic field line which passes through in a given area and it is denoted ama in a given area barta soo qeexin kartaa waxaan loo soo gaabiyaa symbolka oo ah phi loo soo gaabiyaa hadaba magnetic flux qeexitaanka ayaanu siin karnaa way in magnetic flux inagoon ka dhex bixin ayaan waxaan rabnaa markaa qaacidadii mathematical ahaan inaan u sheegno we express waxaa magnetic field mathematical ahaan markaan sheegano waxay la mid tahay phi waxay la mid tahay marka b oo lagu dhafto a hadaba b iyo a waa areadii b na waa magnetic field strength magnetic field strength ayaa loo yaqaanaa ama density of magnetic fluxka so areadana waa area of the lobe sidoo kale theta haddii aragto theta is the angle of between waa angle-ka u dhexeeya magnetic field-ga direction-kiisa iyo direction of normal to the lobe of the area iyo area-da normalka direction-ka normalka uu leeyahay saafilayo qaybtani oo yani area-da iyo magnetic field-ga isku qotomaan iyo marna ay perpendicular ay u yihiin fasalka form 2 aynu kusoo fasirnay aynu welibana zaid ugu soo qeexnay يعني practicalna halkaas ayaan ugu soo sameynay fasalka form 2 waliba cutubka oo shanaad ah oo waliba ka hadlayay qaybta electrostatic way hadii n lobe yani duub badan ee jirto oo n ah waxay qaacidada noqonaysaa marka NBA oo ku dhacsan cos theta theta-daasi waxaan dhahnay waa angle-ka u dhaxeeya magnetic field direction-ka iyo direction of the normalka to the area-da ku ah haddii n yani inta duub uu leeyahayna inaan kusoo darsoomeyso b waa magnetic field strength waaye waayahay it differ from this conceptiga wuxuu ka duwan yahay conceptiga magnetic field flux density oo hadda aan kasoo hadalnay which is defined kaas aan kusoo qeexnay number of magnetic field line inta number of magnetic field line that penetrates ay ka dhex bixisay in a unit area-da markaasi surface-ka perpendicular-ka ku ah waxaan loo soo gaabiyaa donated waxaa loo soo gaabiyaa by the symbol b ayaa loo soo gaabiyaa halbeegiisuna waa Tesla waa yani waa magnetic field strength waa sidoo kale conceptiga magnetic field density-ga waxaa kaloo loo yaqaanaa strength ayaa loo yaqaanaa ama inaad dhahdo strength of magnetic field inaad dhahdo labadaba waa la dhihi karaa marka haddaba anagoo qaacidadan ka duuleyna ayaan markaa ogow tiitadan mara waxay noqon kartaa 90 degree ayay noqon kartaa marna 0 ayay noqon kartaa marna waxa waaye hadba wixii lagu siiyo ku xiran tahay hadba wixii lagu siiyo ay ku xiran tahay laakiin markay ay perpendicular ay ku tahay markay perpendicular isku yihiin waxay noqonaysaa marka waa 0 ayay noqonaysaa markay parallel ay yihiinna waxay noqonaysaa 90 degree ayay noqonaysaa waayahay su-aashan balance la fiirino lobe oo area-da ah area lobe oo dhan markaasi 0.8.0 cm square is in a constant magnetic field ayuu leeyahay b oo 0.15 oo Tesla ah maxay tahay magnetic flux-ka burqad bilabka through ee loobkaas ka jira markii loobka is perpendicular to the field markii loobkan oo perpendicular ku yahay field-ga oo perpendicular oo ku yahay loobka field-ga perpendicular ku yihiin laakiin normalka markii la fiiriyo parallel yihiin mar haddii parallel yihiinna it means waa 0 degree weeyaan oo wax loo yaqaano theta-da haddaba area haysanaa oo ah aan haysano 8.0 taasoo ina siinaysa marka anagoo markaa sameynayno 8ka ayaan waxaan ku dhufanaynaa ama u qaybinaynaa dheh oo markii loo qaybiyo waa 100 oo square maxaan ugu qaybinaa marka 100 square waxa uu qaybinay centimeter-kii markii meter loo dhigay 100 loo qaybinay laakiin centimeter square markii oo meter laga dhigay soo 100 ay noqonaysaa in oo square loo qaybin 100 square waxa uu qori karnaa 10 ku jibaaran 4 aan qori karnaa oo 100 markii square gareeyo waxay noqonaysaa 10,000 ay noqonaysaa 10,000 ay noqonaysaa 10,000 marka haddii qormo sense aan u qorno waa 10 ku jibaaran 4 waa yani 10 ku jibaaran 4 ay noqonaysaa marka 10 ku jibaaran 4 hadda kan waa qaybin waay sare haddii aan keenno -4 ay noqonaysaa sida awood -4 ay noqonaysaa oo aan ku dhufanaynaa wacni sidii lagu dhuftay 10 ku jibaaran -4 oo meter square ay noqonaysaa
ama si toose centimeter square soo maahan oo koraa loo socdaa soo maahan sidaa awgeed 10 ku jibaara minus 4 aa ku dhufanaysaa waayahay waxaa halkaa ku haysanaa b oo aan haysano 0.15 ama 15 tesla sidoo kale halkaa waxaan ku haysanaa oo aan baadigoob ugu jirnaa fire oo ah magnetic fieldigeeni ama magnetic fluxka aan raadinayn magnetic fluxka qaacida waxaan haysanaa markaa oo ah in b oo ku dhaxsan area oo ku dhaxsan markaa cos theta haddaba theta waxaan dhahnay waa 90 waa 0 degree ayaan dhahnay theta maadaama ay perpendicular ay ku tahay maadaama ay perpendicular ay ku tahay sida awgeed theta-du waxay la mid noqonaysaa marka 0 ayay la mid noqonaysaa cos 0 na waxay la mid tahay 1 ayay la mid tahay cos 0 waxay la mid tahay 1 ayay la mid tahay sida awgeed qaacidada oo aan qaadan doono marka xitaa waxaan u qaadan karnaa ba waan qaadan karnaa oo waxaan qaadan karnaa ba na waa qaadan karnaa qaacidada maadaama hadda theta-da ay 0 tahay cos theta na ay 1 la mid tahay laakiin aan iskaga sii darno oo scientific aan kusii quruxsano 0.15 oo b ah waxaan ku dhufanaynaa area-da aan haysano sidee lagu dhufto 1 ku jibaara minus 4 waxaan kusii dhufan doonaa cos 0 ayaan kusii dhufanaynaa sida awgeed cos 0 maadaama uu la mid yahay cos 0 maadaama ay la mid tahay 1 labada markaas ku dhufano 1ka haddii ku dhufano tirada aan soo baxayso 0.515 markii aan ku dhufano 8 markaa ku dhufano waxay noqonaysaa 5ka markii 8 lagu dhufto waa 40 afar wata sida awgeed markii hal markii 8 lagu dhufto waa 8 afarta wadugee waa 12 halka inta u gudbaysaa 1 pointiga meeqo ku jira marka 1 2 3 god si marka sida awgeed godka labaad si 1.20 oo lagu dhuftay kan si soo jira oo qormo sayniska ah lagu dhuftay 10 ku jibaara minus 4 oo Weber ah qaabkaas ayaa lagu shaqeeyaa haddii in loob lagu noqotona inaa ku dhufanaysaa haddii perpendicular ay ku noqoto kali hadda practice-ka xiga waxaan malaynayaa inay parallel ay tahay so waa inaa adigana isku dayi kartaa marka oo haddii parallel noqoto parallel to the field haddii noqoto waa when lob waa loobka hadduu perpendicular ku yahay fieldiga 0 degree waaye hadduu parallel leeyahay fieldiga waa 90 degree waaye marna waxaa lagu siin doonaa xagasha inta ay dhacdo ama ay u dhaxaysa lagu siin doonaa 65 70 50 55 45 30 hadba wixii lagu siiyo ku xinta laakiin markii ay perpendicular iyo parallel ay noqoto tiro go'an oo la wada yaqaano ama 0 ama 90 noqonayso waaye aad u maasantihiin dhegeysigiina waxaan daawashadiina qaaliga ah fadlan haddii aad ku cusub tahay channelka inoo subscribe garee adigoo gujinaya gambaleelka like commentigana waa inoo muhiim mahadsanid